waa gabar Soomaaliyeed oo ninkeeda xumeeyay kadibna waxa ay bilowday in ay dharka dhigato iyadoo ku xumeynaysa ninkii furay. muddadii aan kala fogeyn maqana jooganaha xilliya mugdi baan ku jiray xilliyada kala miirankee magaaladu seexataan. gabadhan oo muuqaalkeeda aad looga hadalhayo baraha bulshada ayaa waxaa aad uga xumaaday bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan hablaha Soomaalida kuwaasi oo dhaliilo kala gedisan hawada u mariyay. gabadhan ayaa gacanteeda isku fariixinaysa muuqaalkan isaga duubtay iyadoo rabta inay ku xumeyso ninkii gabi ahaanba ay kala tageen. markaad u eegto caqli xumo iyo weliba dhaqan xumo kale waxayna ku andacoonaysaa oo ay muuqaalo aad u dhaqan xun hawada u soo marisay gabi ahaanba ninkii ay kala tageen iyadoo leh alaabtan ayaad ka tagtay jirkan quruxda badan ayaad calfan weyday sidoo kale ay heestaadis ku ciyaarayso. waxaana sidoo kale ka muuqata in ay markaasi qaawan tahay oo dabcan masayr saa'id waayo baan ku jiray xilliyada kala miirankee magaaladu seexataan. masayrku waa mid aad u xun waxaana gabi ahaanba ka tegaysaa waxyaabaha wanaagga dhanka diinta dhaqanka iyo asluubta aba waxaana mar walba ku muuqanaya waxa qalbiga ku jiro inaad samayso oo kaliya. haddaba gabadhan ayaa sheegtay in jirkeeda ay u banaysay dabcan si ay u soo jiidato gabi ahaanba ninkii horay ay markaas u kala tageen, balse sidaasi ma noqonayso oo nin gabi ahaanba markaa tagay macquul ma ahan in uu dabcan dib kugu soo laabto adigoo ka gedaya jirkaada.